xigmado noloshaada wax badan ka bedeli doona. هاي 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 يا معان هاي 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 يا معان هاي هاي. Kow, riyo haddii aad maqasho ma ahan mid marka aad hurdaysid aad riyooto, balse riyada dhabta ah waa midda habeenkii kaa kicisa misena ku gelisa fakir, ugu dambayntiina hurdada kuu diida. Labo, in lacagtu aysan qiimo lahayn waxaad ogaanaysaa marka aad aragto qof sariir qurux badan haysto, haddana hurdo weysan, qof cunto macaan oo qaali ah loo soo gaday, haddana liqi weysan, qof dhowr guur sameeyey, haddana carruur weysan. Ogow dunida waxa ugu muhiimsan waa caafimaad, ma ahan lacag. Saddex, midabka madow dad badan ayaa neceb, sidaas oo ay tahay, dadka maanta dunida heerka sare ka gaaray waxay wax ku soo barteen sabuurad madow. Afar, dad badan ayaa maanta dunida ka gaara guulo la taaban karo, balse aakhiro ayagoo aanan xitaa hal boonda ka haysan soo istaagi doona. Halka dad badan oo maanta fakhri ahna ay aakhiro la imaan doonaan darajaad sarsare. Taas ayaaba ku tusaysa in guusha saxda ay tahay midda aakhiro. Shan, mar walba shaqadaada jeclaaw, balse ha jeclaan shirkadda aad u shaqayso, sababtoo ah shaqaale badan ayay shirkaduhu nacaan sanad kasta, ayagoo shirkadda jecel, balse shaqadu marna ma nacdo qofkii jeclaa. Lix, inkastoo ay jiri karaan dad neceb qofka ay wada nool yihiin waalidkiisa mid ka mid ah ama labadaba, haddana doqonnimo waxaa kuugu filan in aad geed nacdo misena aad jeclaato in aad mirihiisa cunto. Toddobo, ma taqaanaa sababta dad badan oo aan okiyaalo loo qirin ay u xirtaan okiyaalaha? Wax kale ma ahan, waxay og yihiin in dadka qaar ay yihiin dad wejiyo badan oo ay u baahan yihiin in laisaga fiiriyo afar indhood iyo wax ka badan.